الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها شرفت بدن ميلاد جوجتان بوايد سلامي وإسسو النقد مرلبات إيا كتاب عصب بإذن الله تبارك وتعالى kitaabka caawa aan bilaabayno oo taariikhda ay tahay waa 3 bishii Shacbaan 1442 oo ku beegan 16 bisha Maaj ama Maarso 2021 insha Allah biidnillah kitaabka aan bilaabayno waxaa la yiraahdaa si kooban hadii loo yiraahdo addaa wadawaaba kitaabka magaciisa la yiraahdaa laakiin kutubta qaar wuxuu ka jawaabayay sheekhu su'aal la weydiiyay marka wuxuu u bixiyay الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي يعني وحاوي جواب كفلا قفك ويديي دوذا وناكسن أما عافماتك marka kitaabka magaciisa si kooban hadaad geliso tirada adbaadid waxaa la yiraahdaa addaa wadawa ibn al-qayyim al-jawziyya ba iskala rahimahullah oo kitaabkii horena lahaa intaynaan marka u gelin kitaabka inaan wax ka sheegno ba waxaan rabaa iclaanaad iyo tawjiihaad inaan hormariyo maadaama kitaab cusub aan bilaabayno biidnillah tabaaraka wa tacaala kitaabkan addaa wadawa horta ahamiyad ahaan kama liito kitaabkii hore bal kutubta ugu muhiimsan ee sheekhu leeyahay ayuu ku jira uu ka mid yahay kitaabkan qaabka aynu aqrinayno waa qaab ka duwan kutubtii hore sida aan inta badan loo aqrin jiray oo ah in kitaabka la fasiro xaraf xaraf loo fasiro saacadana dee la fadhiyo muddo dheerna uu socdo qaabka waan ka leexanay qaab kooban oo dariiqa macnaha aan soo gudbinayno jumle iyo aan u aqrinayno waliba aan muxtaaroonayno oo ka dooranayno ayaynu aqrinaynaa dariiqada aan ku jeednay waa wacdi iyo irshaad ee dadweynahana insha Allah tacaala inay gaadho sababta aan sidaa u sameeynaynay waa inay dadku juhdigii iyo hada waqtigiina uu yaraaday ummadiina mashquulkeedii baa batay wax badanna lama dhageysan karo laakiin ujeedadu waa in kitaabka la ogaado waxa uu ku fadhiyo haddaba waxaan isku dayayaa biqadri almustataac inta tabartu ay tahay inayna 5 daqiiqo ila dhaafin insha Allah tacaala 10 walba si aan looga daalin biidnillah tabaaraka wa tacaala mar labaadna intishaarkiisa iyo fidintiisuna ay u dheeraato dad badan u gaadho gaar ahaan dadka Afrika jooga uma soo dago haddii clip dheer ay helaan marka inuu gaabto insha Allah si faa'iidada ummadda ay u gaadho kitaabku waa kelimad wanaagsan oo tayiba marka dadweynaha inaad idinkuna nashrisaan oo ummadda u gudbisaan weeye faa'iidadu qof kasta soo gaadho loo soo diro macnaheedu adiga kaliya ma aha inta kula xiriirda gaarsii maxaa jira intifaaca adigu aad ku intifaacayso iyo kan qofka aad u diro ku intifaaci iyo kan sheekha aqrinaya ku intifaacayo kulligood waa isku wada mid الدال على الخير كفاعل qof waliba ajir ayuu ka helayaa biidnillah tabaaraka wa tacaala hadday dhacdo inaad marka qaar kood weydo wixii kitaabkii habeena aad weydo soo sheeg insha Allah tacaala igu soo warceli wiilal baa khayr Allah siiye ka shaqeeyo igala shaqeeyna dadka loo diro marka si ay insha Allah tacaala dib lagu soo diro mar labaad na soo wargeli insha Allah tacaala kitaabkan addaa wadawa la magac baxay kitaabku siduu u dhan yahay wuxuu ka jawaabayaa hal su'aal oo Sheekh Ibn al-Qayyim la weydiiyay su'aashaasna waxay ahayd waxa lagu yiri sheekh waxaad ka jawaabtaa nin lagu ibtileeyay mashaakil yani dambi baa lagu ibtileeyay wuxuuna og yahay hadduu dambigaas sii wado inuu ka fasahaadinayo adduunkiisa iyo aakhiradiisa labadaba wuxuu ku dadaalay qofkaas inuu naftiisa ka celiyo dambiga dariiq walba iyo wado walba u maray laakiin wuu ka sii darayaa mar walba maxay tahay xeelada lagu celin karo dambiga dariiqa lagu faydi karaana muxuu yahay فرحم الله من أعان مبتلا بول وانك سؤال ويديني إلهي هون حريص قفك قف إلهي ابتلايي أكالمي والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
ilaahayna wuu u kaalmaynaya addoonka intuu isaguna dadka kale uu u kaalmaynayo. marka waa su-aal qof cilmi leh baa isaga naftiisa weydiiyey, walacalla ujeedadu inay ahayd inuu sheekhu ka jawaabo ummadduna ay ka faa'iidaysato. sheekhu wuxuu ka bilaabay su-aasha jawaabteedii ayuu kitaabkan addaawa dawaa ka dejiyey oo 200 oo beyj ah. marka waa halkaas su-aal buu ka jawaabayaa, wax tiro badan buu kaga jawaabay. sheekh ibnulqayim wuxuu uga duwan yahay culimo badan, cilmigiisuna wuu badnaa, dhanka iimaaniga iyo ruuxigana mar walba uu ka hadlayay. wuxuuna u sameeyey gogol dhig si horta ninkii u qanciyaba uu u dego. ma anzala allahu daan ilaa anzala lahu shifaa buuri, ilaahay cudur ma soo dejinin ilaa caafimaad buu usoo dejiyey. walikulli daa'in dawaa, cudur kastana wuxuu leeyahay dawo ayuu leeyahay, ilaa hal cudur ma ogyahay oo gabowga ah. marka inta kale hadduu yahay cudurkaasi mid qalbiga ku dhaca, hadduu yahay mid jirka ku dhaca, walidaalika ayuu rasuulku wuxuu ka dhigay jahliga waa cudur, dawadiisuna waa culimada in la weydiiyo. marka halkaasuu gobol dhig uga dhigayaa. jawaabta waxaan ka heli doonaa duruusta soo socota biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. caawana halkaas su-aal iyo towjiihaadkaasuu inoogu joogi. wajazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.